gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer Mudane Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo kula hadlay xarunta xisbiga wadaniga ee magaalada Burco warfideenada ayaa waxa uu dhaliilo xooggan u soo jeediyay maayarka degmada Burco iyo golaha deegaanka oo uu ku dhaliilay gabi ahaanba inay ka gaabiyeen mas'uuliyaadkii waxqabada bulshada gobolka Togdheer ay dooratay. Gudoomiyaha ayaa si gaar ah ula hadlay duqa degmada Burco waxaana ka mid ah hadaladiisii gobolkeena Togdheer degmadeena Burco aynu maanta ku sugannahay gobolkeena waa gobol ballaaran 14 degmo ka kooban yahay degmadeena ugu weynna waa Burco degmada doorashada ah maanta degmadeena Burco waa degmada ugu hooseysa xagga nadaafadda qashinkii iyo bay saddex yaala qudradii caanihii iyo hilibkii waa arkiiseen hooyooyinkii cashuur bixiyayaasha ahaa ee danyarta ahaa ee sariibada hilibka fadhiyay in ay sheegeen in hilibkoodii uu dhammaan khasaaroobay oo uu fuulay duqsigii dabatana laga iibsan waayay magaalada waxa ka daay roobab meel kasta waxa fadhiistay biyihii waxa isku darsamay biyihii roobka ee cirka iyo bulaacadihii guri kasta hortiisana waxa hortaala bulaacad baa ka buuxda cidda mas'uuliyadda iska leh waa dawladda hoose ee loo baahan yahay wax ka qabta ee DB-yada la dayacay ee la daadiyay ilaa iyo meel kasta ilaa iyo suriyo ilaa iyo halka magaalada laga soo galo waxa la dejiyay dad DB-ya oo aan wax allaalo wax loo qabtay aanay jirin cidda halka geysay ee mas'uuliyadda qaadaysay waxa weeye waa dawladda hoose kaaga darane waxa loo dejiyay qaab liidata oo sakhiifa oo kala qaybinaya deegaanka Burco oo jilib loo dejiyay waxaana ka mas'uuliyadda qaadaya maarka Burco geesta kale Master Doob gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer ayaa waxa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqay inay ka qaadaan kootada si loola xisaabtami karo maayirada Soomaaliland markii hore golaha deegaanku waxay power sharing waxba la share gareyn jiray 22 xildhibaan baa la doortay 22 ka xildhibaan waxay ka wada tashan jireen wixii golaha deegaanka laga qabanayo degmada Burco laga qabanayo laakiin hadda waxa la siiyay maayirka kaliya awood leh maayirkina meesha wuxuu ka dhigtay dukaan uu isagu leeyahay oo Suudaan oo maamusho waxaan soo jeedinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in laga qaado xildhibaanada golayaasha deegaanka cunaqabataynta toosna loogu ogolaado inay gutaan waajibaadkooda sharci waxaan ugu baaqayaa hanti dhowrka guud ee qaranka in dawladda hoose degmada Burco la xisaabtamo oo loo soo diro audit baaritaan ku sameeya bal waxyaalaha Burco ka jira iyo dhaqaalihii Burco meesha lagu bixiyay cashuurtii dadka laga qaaday gudoomiye Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo hadalka sii wata ayaa waxa uu weydiiyay duqa degmada Burco halka ay ku baxday dhaqaalihii loogu talagalay xuska munaasabadda 18 May oo guud ahaan baan sanadkan 2020 laga xusin gudaha Soomaaliland gudoomiyaha ayaa duqa degmada Burco waxa uu ka codsaday inuu shacabka u sheego meesha ay ku baxday lacagtaasi maayirka Gibiley wuxuu sheegay inuu cagafi ku kreeyay bulshadana uu tusay maayirka Hargeysa wuxuu sheegay inuu 500 oo oxygen uu ku caawiyo isbitaalka Hargeysa maayirka Barbarana waa loogay magaalada Sabilicna wuu sameeyay timirna waa beeray inaga maayirkeenu inuu ma sheegin lacagtii dhiin mayda loogu talagalay meeshuu qabadsiiyay xafladiisii inuu ku daray arooska iyo inuu agab siistay iyo meeshuu geeyay inuu ka bixiyo warbixin mugle sida inamadaasi ay uga bixiyaan lacagtii dhiin mayda loogu talagalay ee miisaaniyadda ugu jirtay 2020 ugu jirtay gobolka Togdheer isaga laga rabaa ugu dambeyn Maxamuud Xasan Saleebaan Doob gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer waxa uu ka jawaabay dhaliilo maalmihii la soo dhaafay duqa degmada Burco u jeediyay asxaabta siyaasadda Soomaaliland gaar ahaan labada xisbi mucaarada hadaladii maayirkeena ka soo burqanayay maalintii dhaweyto qiimayn badan siin maayo laakiin kelmad haddaan ka idhaahdo haddii ay cid loo qabsanayo maayirka degmada Berbera si bilaadan loo caayo sidii ugu xumayd maayirka Burco caayay rag baana u gurmad u sameeyay oo u hiiliyay oo maayirka Berbera bariyay oo garka qabtay hadduu maxkamad la gali lahaa waxa go'aan laga gaar lahaa si surwaalkii shalay lagu gubay maxkamadda Burco marka waxba la caayay maba oran karo abwaankii gabiye wuxuu yiri deelqaaf fagaare ayaa iblis ku dukhulaaya dibna hadal ka yimi baa xagga loogu dawgalay ma laga yaabaa inay ku sababato kelmadaasi inay sababto in aad saacado gudahood aad kaga dhaqaaqdo kursiga qaranka aad ku fadhido mucaarad iskama xijin kartid hal inan baa kelmad ka qoray karantiin wuxuu ku yahay oo isku karantiimeeyay Libagoon maxkamada la gashay xataa laana wad kula jirtaa wad ka dulmuusanaabeysaa waxaad leedahay inama aanu leenahay adigoo maxkamadda jooga baad leedahay aniga rag bay la dhashay ma adiga mucaaradada iska celin kara inan yar oo dhalinyaro xisbiga kulmiye ka tirsan oo kelmadda qoray
ayaad u dul qaadan kari weyday ma adiga xisbiga wadani oo soo dhaqaaqay u dul qaadan karaya oo awoodda leh waxaan ugu baaqayaa dhammaan ciddii ay aflagaada ka soo gaadhay annaga xal ka siinayna waayo dee waa maayirkii gobolka degmada wixiisuna waana saameynayaan oo ninku waa reer Burca la oranaya hadalla aanu meel deyn oo hadhowto aanu tafaasiil ka bixin karin oo ku hadlaa sidii barigii oo la ku jiray Muuse Biixi isagoo doonaya inuu adeego oo madaxweyne ka dhigo ayuu wuxuu yiraahday haddii Muuse la doorto waa mar labaad iyo buura bal macnaheedu baa la yiri wuu macnayn kari waayay iyadoo madaxweynaha la soo dhaweynaya buu waa magaaladii ragga madaxweynaha yiri warda dumarkana ku darablana way la joogaan rag qori magaalo ma camree maanta haddaynu nahana macnaheedu kelmadda xisbiyadu waa shirkad waa wax la wada leeyahay isaga baa qiraya xitaa af Soomaaligii uu ku hadlayay siiqadu uu oranayay baa maayirkeena wax badan ay ka khaldeen waana halku ka lahaa abiyan garka laga meegay cirada guudka kaga taale nin haduu gabaan hadal ka yahay uu gagabiya وخالد بكيلة ورارك فوقنا رجع حرطة ستار تي في برعو